Baarlamaanka Jarmalka oo meel mariyay sharci cusub oo la xiriira dadka muhaajiriinta. Das deutsche Parlament verabschiedet ein neues Gesetz über Migrantenpopulationen. Halkani waa deersame iyo anigoo Ahmed Hassan. Baarlamaanka Jarmalka ayaa meel mariyay sharci cusub oo u fududaynaya dadka soo galootiga oo ay ku jiraan kuwa magangelyo doonka in ay shaqo ka helaan dalkaas. Dowladda Jarmalku ayaa doonaysa inay meesha ka saarto guud ahaan caqabadaha haysta shaqaalaha muhaajiriinta ee ka imaanaya meelaha ka baxsan midowga Yurub, taas oo qayb ka ah siyaasadda Jarmalka ee ay ku doonayso inay ku yarayso shaqaalo yaraanta ka jirta dalkan Jarmalka. Dieses Gesetz ermöglicht es Einwanderern auch, ihre Familien nach Deutschland zu bringen. Sharcigan ayaa sidoo kale dadka soo galootiga u oggolaanaya inay qoysaskooda keensan karaan Jarmalka. Mucaaridka ayaa ku doodaya in sharcigan uu dhiirigelin u noqon doono socdaalka muhaajiriinta ee aan kala joogsiga lahayn.